wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa safar shaqo ku yimid maanta magaalada Gabiley safarkiisa shaqo ay ku weheliyaan howlwadeenada wasaaradda ciyaaraha ayaa kormeer ku soo maray yool santarka magaalada Gabiley oo ay ka wado wasaaradda ciyaaruhu kormeerkiisan uu ku soo maray yool santarka magaalada Gabiley ayaa waxa ku wehelinayay xogayaha dawladda hoose mudane Mustafa Maxamuud Xaaji mas'uuliyiintii ka hadashayna waxa hadaladoodii kamid ahaa inoogu dhamaanteen farxad inaynu joogno yool santarkii oo maanta halka inoo mariya ayaantan dhagax dhignayna waa ogeeyeen waxba ma dhaxayn waxaanu inagu ka turjumaynaa anagu waxaanu nahay gacman yaraashay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu ballanqaadyadii aynu sameynay ama xusbiga ha ahaato ama National Development Plan ka ha ahaatee kuwa ugu horeeyay in hirgelino weeye aad iyo aad waxaan filayaa in wax badan uga bedeli doonto yool santarka ma noqonayo ba hadda kii ugu horeeyay kii ugu dambeeyay wadanka magaalo walba saasa looga samaynayaa inta kale dhulka ay inoo banaana waa la soo xidhi doonaa waxay noqon doonaa indoor gameski waxay noqon doonaa meelihii dawaarka iyo waxa lagu baranayay wuxuu leeyahay multi purpose weeyaan yool santarka waxaan fili doonaa dhalinyaro badan oo reer Gabiley inay ku faa'iideysan doonto aqoona kala soo bixi doonto xirfada kala soo bixi doonto isku wacyi gelin doonto waxa weeyaan wadankeena horumarkiisu inagu xidhan yahay dhalinyaradu ku xidhan yahay inaynu u soo wada jeesano horumarka wadanka oo dhalinyaradu ay koow ka tahay bay inoo tahay maanta inagoo kii koobaad halka marinayna kuwa kalena waynu ka wada shaqaysanayna kuwii jiray kuwa dambena waynu ka wada dhisi doonaa gobolada dhan iyo degmooyinka way gaaraysaa sida ay tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inta jooga Muuse Biixi Cabdi maanta waxaan ku suganahay xaruntii dhalinyarada gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Gabiley waxaa maanta booqasho ku yimid kormeer wasiirka wasaaradda ciyaaraha xaruntan dhalinyarada ee gobolka Gabiley waxaan rajaynayaa inay waxyaabo badan ka anfici doonto dhalinyarada gobolka Gabiley hadday noqoto xaqii xirfadihii kor lagu qaadiyay shaqo abuurka hadday noqoto indoor gameski hadday noqoto library-da dheertu wax ku akhrisanayeen dhalinyarada ciyaarahuna uu noqday wasiirkii ka himilada ka midhaliyay maanta waxaan farxadnaa wasiir in himiladii wasaaradda iyo degmada oo isku jirta ay noo hirgashay oo maanta yool santarkii inoo hirgalay dhalinyaradiina ay ka heli doonto library-gii basketkii iyo waxyaabihii ay dhalinyartu ay kaga maarsan lahayd muxaadaraadka iyo dibjirnimadaba maanta wasiir waxa noo farxada in himiladaadii ay degmada Gabiley ka hirgashay waajibaadka iyo xilkasnimada ay iska saartay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu in ay dhalinyarteedii ay ku helaan meel ay waxna ku akhristaan kuna ciyaaraan ayna waqtigooda ay ku qaataan ku soo dhawow wasiir shaqadii oo socota mashruucii oo bilaabmay iyo hawshii oo socotaba waxaan kugu soo dhaweynayaa degmadii Gabiley iyo mashruucii oo inoo hirgalay waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.